صلاح الدين يوسف بن أيوب الكردي halgamaagii weynaa islaamka dib u soo celiyay Qudus muddo badan ay gacanta ku haysay boqortooyadii Saliibiyiinta 1138 miilaadiga ayay ku dhashay deegaanka Tikrit ee waddanka Ciraaq hase yeeshee waxa uu ku soo barbaaray magaalada Dimashq xilligaas oo uu ka tirin jiray boqorkii la oran jiray Nuuruddin Maxamed Saki dhalinyarnimadiisii ayuu ku biiray ciidankii Nuuruddin Saki muddo kadibna waxaa loo diray Masar oo ay ka tirin jirtay dowladdii loo yaqaanay Faadimiyiinta wuxuuna duulaan ku qaaday Faadimiyiintii iyo waliba Faransiiska ku sugnaa xeebaha Masar صلاح الدين waxa uu gacanta ku dhigay awooddii maamul ee Masar waxaanu halkaas kaga dhawaaqay dowladdii loo yaqaanay Ayyuubiyiinta waxa uu bilaabay dagaalo isdaba joog ah oo lala galiyo boqortooyadii Saliibiyiinta ee gacanta ku haysay Qudus iyo meelo badan oo ka mid ah dhulalka Islaamka dagaaladii ugu caansanaa Salaah الدين la galo mamaaligta waxa ka mid ah dagaalkii Xudayn waxaana dagaalkaasi xun loogu jibiyay boqortooyadii Saliibiyiinta dagaalku intii socday waxa soo foosaaray ciidamadii mamaaligta dowrgoob balaaran waxaana halkaas kaga dhintay hogaamiyaashii ugu muhiimsanaa boqortooyadii Saliibiyiinta waxaana ka mid ahaa boqorkii ka talin jiray Bayt al-Maqdis kadib guusha balaaran Salaah الدين waxa uu duulaan ku qaaday dhanka xeebaha Shaam waxaanu cagta sii mariyay dhammaan boqortooyooyinkii yaraa ee hoos imanayay imbraadoriyadii Saliibiga maalin khamiis oo ku beegan 20kii Sebtembar 1187 miilaadiga ayuu soo gaaray magaalada Qudus wuxuuna go'doomin ku hayay magaalada muddo 12 maalmood ah labadii Oktoobar 1187 miilaadiga ayuu Salaah الدين gudaha u galay Qudus wuxuuna gacanta mariyay dhammaan Saliibigii ku sugnaa gudaha magaalada Qudus labadii Maaras 1193 miilaadiga ayuu suldaanku ku dhintay magaalada Dimashq waxaana lagu aasay duleedka masjidka Umayyadeed ee Dimashq